waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa marka hore reer Galmudug guud ahaan iyo caasimadda gaar ahaan sida ay noo soo dhaweeyeen aniga iyo wafdigii iyo dadkii ila socday runtii soo dhaweyn aad iyo aad u sareysa oo aan aad iyo aad uga mahadcelinayno iyo sooriyo iyo intaba martigelin aad u sareysa runtii hadday dhinac kasta tahay aad iyo aad ayaana loo soo dhaweeyey maantana waxaanu ku soo sagootiyey xubinadii golaha shacabka ayadoo si weyn loo soo dhaweeyey runtii reer Galmudug guud ahaan uga mahadcelinayaa oo dadaalkaas runtii aan ku wada matalno gaar ahaan waxaan uga mahadcelinayaa dadka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo hadal oo yiri madaxweynihii hore Mareykanka Barack Hussein Obama markii loo doortay caucuskii ugu horeeyay markuu u tartamayay madaxweynenimada Iowa meel la yiraahdo ayuu tartankii ugu horeeyay caucuska waxa la yiraahdo nidaamka Mareykanka oo saa ogtihiin marka hore waxa lagu soo baratamaa xisbiga dhexdiisa marka xisbiga ka soo baxda ticket waxa lagu siinayaa xisbiga hadda ku guuleysato in asaga u tartami kartid marka nin wuxuu ahaa madow abiis muslim yahay Kenya ka tagay marka dad badan waxay lahaayeen nin madaxweyne Mareykanka ma noqon kartid maxaa saaxiib isku lugoynaysa marka uu tartamay oo caucuskii ugu horeeyay ee Democratska xisbiga uu ka tartamay oo ku guuleystay hadalkiisii wuxuu ku bilaabay kelmad aad loo diiwaan geliyo la yiraahdo they said this day will never come waxay dhaheen oo yiri maalintan ayada ah maalin dhacaysa maaha laakiin waa dhacday dad badan ayaa lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka ma soo qaadi karo Galmudug xoog maskax muruq iyo maalna waa geliyeen inaana soo qaadin waqti kasta iyo tamar kasta iyo dhaqaale kasta ay leeyihiinna waa ay ku bixiyeen arrintaas ayada ah dad badanna way aamineen sababtoo ah waxay aaminsanaayeen inay ayaga awoodii haystaan inay ayagu dhaqaalihii haystaan inay ayaga wax kasta oo dowladnimada ayaga haystaan ay aamineen markay aamineen waxay ku dhaqaaqeen in wixii la dhihi jiray guulwadayn ay galaan oo madaxda amaanaan oo meel kasta istaagaan oo maqaaxi kasta ay ka yiraahdaan adaa jiray joog si ay kursi u soo helaan taas ma dhicin cagsigeeda dhacday waxaana sababay madaxda iyo shacabka Galmudug ayaa sababay arrintaas ayada ah waxa kale oo sababay dadkii aan ku matalaayay kursiga oo sida senator saaxiibkay dhagdheer uu sheegay tanaasulay iyo gudoonkii doorashada iyo dadkii dhamaayo gartay inaan halgankii 5 sano aan lagu abaalmarinin dagaalkii ka yimid raggii aan isaynay inaysan guuleysanin ee halganka oo guuleysta gartayna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maanta markay dhacday on doorashadii ilaa hadda waxaan u maleynayaa teleefankayga weli ma isticmaalin sababtoo ah fariimaha waxdaan qiyaaso waxaan dhihi karaa minute kastaba 2 teleefan ayaa soo dhacaysa daqiiqad kasta oo kamida 2 teleefan ama fariin lii dhaafaa soo dhacaysa oo ka imaanaysa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka joogaan ma aha inaan xildhibaan noqday inay macno weyn u leedahay ayaga ma aha taas waxaa macno u leh wixii 5 sano anigii dadka kala midka u taagnayn oo ah waxay dadka Soomaaliyeed hiddo u leeyihiin taas oo ah qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay inuu xor yahay xornimada qofka Soomaaliga wuxuu siista ma laha qofka Soomaaliga in la dulaysto ma jecla oo ama dhaqaale ama masab lagu dulaysto ma jecla qofka Soomaaliga ma jecla in la gumaysto ma jecla gobonnimada aad ugu dhintaa qofka Soomaaliga inuu dimuqraadi yahay oo geed hoostiis ay waxooda ku dhameystaan oo tala laga dooday wax lagu gudoomiyo annaga waxa leenahay dhaqan
ee ugaasyada iyo salaadiinta uga yihiin ugaasyada iyo salaadiinta iyo nabadoonnada iyo malaaqyada iyo qololba waxay qabtaba waxuun bay guddoomiyaane ayuu go-aan ma gaaraan geedka markii lagu doodo oo dadku ay isqanciyaan markaasay ayaga guddoonka u sameeyaan dad saasaan ahayn soomaaliya ma aha dal ay dictaatoriyad ka suuroobi karto dadka Soomaaliyeed daafaha adduunka iga soo wacay ama fariimaha iga soo diray waa ka cudur daaranaya horta inaan ka jawaabi karin taleefanadooda waxaan isleeyahay mas'uul Soomaali ah oo aan garanahay hadda inta joogta marka laga reebo qolada filla Soomaaliya waliba madaxtooyada prime ministerka kuma jiro laga bilaabo prime ministerka ilaa iyo qof kasta oo Soomaali ah way soo waceen wayna ii hambalyeeyeen macnaheedana ma aha inay xildhibaannimo igu hambalyeeyeen waxa waaye inay guuleysatay cadaaladii dulmidiidkii dimuqraadiyadoontii iyo xorriyad u taagii inuu guuleystay ay dadka Soomaaliyeed oo dhan igu soo taamiyeen dad ajnabi oo badan oo safiirada beesha caalamka midana way ka mid ahaayeen oo Soomaali kaliya kuma ekeen aniga Cabdiraxmaan Cabshakuur in xilli ii doorto ma sugin shantii sano xildhibaanna ma ahayn wasiirna ma ahayn madaxweyne goboleedna ma ahayn meel masabna kuma magacawnayn anoo intaas ahayn ayaan dadka Soomaaliyeed ugu shaqaynayay mas'uuliyadaasoo ah inaan ka ilaalino dulmiga inaan ka ilaalino in lagu xadgudbo inaan ka ilaalino in kalitalisnimo dalka loo celiyo intaasaan ugu shaqaynaynay maanta haddaa reer galmudug tihiin oo iidmateen inaan xilkaas qaadana waa in kaga mahad celinayaa sidii si ka mug weyne insha Allah waa ku sii shaqay doonaa waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed maanta inay ogaadeen in mabda'a ku sugnaanshaha mowqifka aragtidaada inay caddahay inaadan qofna isku dulaynin inaadan qof mansab uga raadin ama xil inaad ammaanto ama aad isku dulayso inaysan waxba lagu helaynin Soomaali maanta waa u caddahay waana u wada jeedaan sababtoo ah kuwii intaas sameeyo dhan way khasaareen dadkii gobonnimada iyo mabda'a iyo ku dhintay inay mowqifkooda taagnaadaana sanatarada saaxiibada ee qaar ka mid ah xildhibaanada jooga dadkaas ayaga ahna waa u jeedaan oo aan ka mid ahay way guuleysteen marka haddaad mabda' leedahay oo aad mowqif leedahay oo aad dadnimadaada ilaashato oo aad sharaftaada iyo karaamadaada ilaashato oo aad xil weyso xilku waxba maaha dadkaad macno ku dhex leedahay bulshadaad qalbigooda ku nooshahay waa kuwa maanta daafaha adduunka qabiil ay Soomaali ka yihiin anoo aqoonin nus dadka ka mid ah maba aqooninba taleefanadoodana xataa ama WhatsApp callka iga soo wacayeen maba aqooninba qaar badanna waan aqaan waxay ugu soo wacayeen waxay ahayd in aan ahay qof ku nool damiirkooda iyo dadnimadooda qof ka turjumaya waxa ayaga ay rabaan ayaan ahaa saasaan u haystaa kuwa ilaa midka ahna saas waaye taariikh cusub oo qormaysa oo u qormaysa baarlamaanka soo socda labadiisa gole oo ah maxaa wax lagu dooranayaa ama maxaa wax lagu dhisayaa maxaa wax lagu dhisayaa nacamlayn guulwadayn iyo inaad tiraahdo ha layga raali noqdo aniga aan qanciyo aniga aan raali geliyo mise inaad mabda'aaga iyo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo damiirkaaga iyo dadnimadaada waxay ku siiyaan inaad ku shaqayso maanta waxaan u malaynayaa 5 sano ka bacdi taariikhda Soomaaliya waa kala qortay labada meel midkaan aadayno dadka Soomaaliyeedna inay u caddahan u malaynaa arrintaas ayaga ah waa maasiyay saaxiibkay senator Ragnar waa runtiis munaasabado badan oo aan runtii ama ahaato midii maaragtay madaxtinimo loo istaagayo ama midda maanta ah ama kuwa kale ay kamid tahay dulmigii 12 sano noo ku eedahay arintii badda munaasabado badan oo u joogay runtii hawadana waxa inii sheegaa sir 2016 kiina codka aniga uu siiyay laakiin sanadkan cariiri weyn aan lagu hayaa sanadkan cariiri weyn ayaa dhinacaas iga jiro sababtoo ah asaga reer galmudug oo iga sokaya meeshii soo gala hadeertaan
marka aad u mahadsanyahay senatarka runtii dadka xilkaska ah ee asaga iyo asxaabta kale oo meesha jooga xildhibaan Mustaf iyo xildhibaan Cabdixakiin iyo rag kale oo u mahadcelinaya runtii oo ayagana dhowr munaasabado aan ku kulanay runtii hadalka uu sheegay waa run doorashada noocay tahay iyo waxay tahay iyo see u dhacday waa ognahay laakiin dad isdiidan meelay ka soo baxeen runtii waxaa ka jiro oo isku fikir ahayn oo isku aragti ahayn oo iska soo horjeeda oo qaar badbaadadii ciidankii badbaado qaran ay yihiin qaar midowga musharaxiinta ay yihiin qaar ay yihiin qoladii wax dhibaysa oo dulminaysa ay yihiin intaba meeshay ka soo wada baxeen runtii inkastoo aan jeclaan lahayn qolada wax dulminaysa in la ka reebo laakiin hadday soo baxeen dhib ma laha waxaan rabaa inaan kor istaago cabashadii ka timid dadka aan sheegayo ee dulmanaa ee u dambeysay gabadhii hodan eedee meeshaan ka hadashay ee ayada dulmigii maanta uu ku soo dhacay ee qoyan yahay runtii adaana matala wadajirna adaa matala cid kugu haysato ma laha weliba waxaa la ii sheegay inay madaxweynaha fadhiya xigtidiisa hoose ay tahay dulmiga cid ay ka tabanaysana ay tahay waa sidaas sida dulmiga sidiisaba qabiil ma yaqaano cadaaladana sideedaba qabiil ma taqaano sababtoo ah dulmiga qof kastoo ku dhaca ilaahay wuxuu yidhi wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ka cabsada yidhi fitnad aanan asiibaynin kuwa wax dulmiya oo keliya waa mahadsanid maasha allah mahadsanid guulaysohooda soomaaliya guul cadaaladaadan kaa rabnaa gabdhaha soomaaliyeed maanta ooyey cadaaladaadan kaa rabnaa dulmiga sidiisaba qabiil iyo shaksi ma yaqaano qof kastoo ku dhaca waa aragteen hebel iyo hebel malihi aniga dad dulmigii nabadii nolol 5 sano qayb ka ahaa ayagoo ka qaylinaya dulmigii in aragteen aan u malaynaya sababtoo dulmiga waa basaasba cadaaladana dadkay wada deeqdaa oo qabiil ma laha oo cadaaladda dadkay ku wada filan tahay taas inaan ogaano waaye oo aan u saciino inaan dulmigana iska diidno inaan cadaaladani aan ku dadaalno waxaan rabaa inaan waxyar dul istaago dalka abaaro aad u xunaa ka jira oo dhammaanteen ay doorashada naga mashquulisay runtii oo dadku ay aad u dhiban yihiin oo waxa noo gurmanaya haddeerta ajnabigii ay yihiin oo hadday yihiin kuwa maaragtay muslim iyo kuwaan muslim intaba ay soo gurmanayaan runtii dadka Soomaaliyeedna aysan ku baraarugsanayn dhibaatada abaarta ay leedahay macluusha sideedoo gadaalay ka soo baxdaa saas daraaddeed dhammaan dareenkaas inuu nagu wada jiro oo aan isku gurmano oo wixii tabar ah oo qof walba qofka kale walaalkiisa uu dheer yahay dadka Soomaaliyeed dad isku gurma jiray ahaayeen runtii hadday biibaxa dhacdo hadday abaar dhacdo laakiin spiritkii iyo ruuxdii isku gurmadkii iyo walaaltinimadii ehelnimada 5 sano la soo dhaafaa la dilay runtii dadkii waa la kala dilay waa la paralyze gareeyay waxay ajnabiga dhahaan oo cadaawada laga dhex abuuray isnacayb iyo karaahiya la dhex dhigay dalkii laba safaa loo qaybiyay ama ina ila jirto ama ina iga jirto wax la yiraahdo dadkii dhan waa la iswada tuhmay kii xataa culumadii xataa gurma jirtay waa la tuhmay dadkii ganacsatada gurma jiray waa la tuhmay la furnaantii iyo nidaamtii la isugu gurma jiray xataa meesha way ka baxdo runtii dhibaato weyn waaye basharka waxaa la yidhahdaa ama human beingka wuxuu ku nool yahay wax la yidhahda social capital oo ah ra'sumaal bulsho wax la yidhahdo soo markii hadda hanti iyo ganacsi la samaynayo ra'sumaal wax la yidhahda laga bilaabaa soo maaha oo la isku darsadaa bulshada ra'sumaal ay leedahay isku dhimrinta iyo isku turidda iyo isku naxariisashada iyo isku damqashada iyo waxaasoo dhan waxay kamid yihiin ra'sumaalka bulshada ay kamid yihiin ra'sumaalka bulsho Soomaali waxay ku sarfayfto waaye annaga markii dagaalka sokay naga dhacay Rwanda waa ka dhacay Rwanda 1 milyan ku dhimatay waas qalqaleen laakiin dadka maadaama dad ehel ay yihiin dad maaragtay isku dhaxa dad isdhaxla dad walaalo ah dad isku dhibray ay yihiin islaamnimadaas badbaadisay hadda xataa annaga dawlad macna la dalkeena kama jirto intii xataa ay dawladda jirine social capital ka dad kala badbaadinay oo hantidooda iyo noloshooda iyo ganacsigooda qiyamkaas oo bulsho ayaa kala badbaadinaya runtii oo kala hayay hadday tahay diinta hadday tahay dhaqanka hadday tahay ehelnimada waxaasaan ku nooleen adduunka ma dhacdo isteed la'aan ila noolaado maba la rumaysan kara bini aadana isteed la'aan nool oo Soomaalida ahayn taas waxa keenina waa waxaasaan ku nooleen aad iyo aad mar kale ugu mahad celinayaa madaxda iyo maamulka iyo waxgaradka
iyo dhalinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee galmudug sida aad noo soo dhaweyseen insha allah si qurux badan noo sagootisaan aad iyo aadaan runtii inkugu faraxsannahay aan mabsuud inka nahay soomaaliya oo dhanna mabsuud inka tahay ogaada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum